waxbayna wada dhalay aabba iyo hooyo afar kaliya kama joogno abtirsiinyaheenne aan culowna kii yidhi aqli ma laha buurane arwaaxiina uma quuro ul inaan ku tuurno boolida la'aamana abshir lagama qaado sayidkii iyo ikhwaankiisa eraygoodii maqasho hashuna waa arwaax kaliya iyadaanse doonaye haddaan eega laysiinna ma ilaawi doonee agoon iyo yatiim baa leh aakhira la eediye inkaar iyo wax daba guuri ibtiliyo balaayo ilaahaynba uma geeyo ruuxi ayaan leh annagaa isir u haynay iyo 10 awoowe ilma kaliya kuma qaybto mana aamusiise maantana wuxuu ku saabsan yahay dhaqanka ergada iyo ergeynta ee ay Soomaalidii hore taqeen dhaqankaas isaga wuxuu ka soo baxayaa had iyo jeer waa markii qardoofooyin iyo dhibaatooyin ay kala gaaraan qabaa'ilka Soomaaliyeed ee deriska ahaa gaar ahaan kuwii reer miyiga ahaa inta ku diraa ama ceel ama carshin markaa si loo xalliyo arrinta wixii ka dhasha ayaa markaa waxay u soo rogeen dhaqanka la yiraahdo ergeynta dad badan oo Soomaali ah iyo kuwa aan ahaynba waxay qabaan iyaga oo ku gabsan oo ku qaldan Soomaalidii hore markii wax kala gaaraan dagaal inay wax ku xallin jireen ay haddii alla ku rooyahay arrimahooda ku maarayn jireen taasina run ma aha maxaa yeelay waxaa jirtay wax la yiraahdo sidaan soo sheegay ergada iyo ergeynta waxay ka dhalataa markii waxyaalahaas oo kale oo dhibaatooyinka ay dhex mareen qabaa'ilka iyo waxay ku kaci jireen ergada oo aan ku tilmaami karo inay u eg tahay waxa diblomaasiyadda loo yaqaan oo si qabow oo fudud in haddii alla ku rooyahay danahaaga si fudud oo qabow inaad xaajadaada uga dhamaysato ciddii aad wax ku leedahay ama aad wax ka tabanayso maxaa marka laga ergeyn jiray inta aan colaadba la gaarin oo colaadda hubaysan imaan ayaa waxaa laga ergeyn jiray maalan waxaa ka soo qaadaa dil oo kale dil marka uu dhaco waxaa la samayn jiray laba arrimood midkood marka hore waxaa lagu dayi jiray bal horta in mag laga helo qofkii iyo in laga garaabo arrintii haddii la ku rooyahay dilkii dhacay marka magta iyo garaabistaas la diido ayay colaaddu imaan jirtay iyo dagaalku laakiin marka hore ragga ninkoodii ama raggoodii la laayay intay waxay u ergeyn jireen ciddii haddii ay ku tabeeyeen arrintaas marka ayay waxay ka soo qaadan jireen ama loo ogolaan jiray magta 100 halaada ama nin ama hadday laba yihiin 200 haddii ay 3 yihiin 300 iyo garaabid haddii la ku leeyahay 7 xir ayay ka heli jireen halkaas waxa ku baaqan jirtay ama ku baaqan jiray wax dagaal iyo colaad dambe oo ka dhacda taas waxa weeye wixii laga ergeyn jiray su'aashu waxa weeye marka yaa loo ergeyn jiray waxa loo ergeyn jiray sidaan soo sheegay tolka ama qorada markaas lagu tabaayo in ay arrinta ku kacday ama rag kamidii ay gafka sameeyeen marka gafka Soomaalidu markii nin maadaama ay meeshii aysan dawlad dhexe iyo maamul iyo police iyo askar iyo aysan jirin ninka markii uu gaf ku dhaco oo gaf garo ama wax dilo ama wax dhaco ama wax hado waxa loo sheegay jiray haddii isagii la waayo oo isagii laga ool waayo oo isagii wax garaabida laga waayo ama xaqii laga soo ceshan waayo isaga oo kaligiisa tolkii uu ka dhashay ayaa markaa la oran jiray ninka ayaa مسؤولية وزارة أيها شيء مركا أيها يقولون كأشيرينو مركا معنا هذه يجلبت وحكم قناعان أما وحلاقة أما وحلاقة دلو تفكي أيوة إيمان لهاي أما قبائل كذا مركا أيوة إيمان أيان أي مركز مركا هدي على كوزون يا جماعة سيجونا يفرد من شيرينو حرب بيدين شيرينو سيدي أي ما أنت أفرد ميان واحد سير لأج أما أوج يا يجنا واحد اللي أفرد من شير
ergada waxaa ahaan jiray marka nin kasta deera ka halqaad ma ahayn ninka waxaa ergaliga ninna waa noqon karay ergo rag badanna waa loo diri jiray waa noqon jireen waxaa ka mid ah waxaa la meeri jiray rag haddii aan la kuuraa birta calashaday oo wada aftahan oo taariikhda gobolka iyo deegaanka markaa la joogo aad u yaqaan oo tix raaci kara wixii xeer ah oo u horreyn jiray dadka wax ka yani ay wax ka doonayaan iyo iyaga dhexdooda ahaan jiray ayay ahaan jirtay in la diro ragga iyaga ah raggaasi waa inay taariikhda bulshada iyo taariikhda deegaanka aad u yaqaaneen haddii kolka la heli karo mar walba waxaa lagu dari jiray ragga iyaga ah nin gabyaa ah oo aftahan ah oo maanse uu tiriyo haddii alla kugu rooyahay uu kaga soo ceshan karo ergeyntaas isagoo raggaa la ergeynaya maanse iyo gabay iyo geeraar iyo uu tiriyo rag ka hor tiriyo ragga wax ka qaba uu ku beerdulcsan karo oo uu ku qancin karo xaqa ka maqan inay u soo celiyaan waxaaba jira marka maansada Soomaalida qayb dhan oo ka mid ah ergada oo iyo gabayo aad u tiro badan oo nin gabayay uu adeer ku erga wax ku doontay ama kaliya ha ahaado ama rag kale hala socdo gabayada iyaga ah waxa laga xusi karaa oo ugu caansan kii cali dhuuxo ah geerno ugu cesha gabayo kale oo sharmaarka cilmi xariyan la oran jiray isna oo oran jiray maalka noogu cesha oo marka wuxuu tirinayaa dhowr iyo 10 qodob oo gar ugu leeyahay in maalkaasi xoolaha laga qaaday geela haduu yahay geela haday magtahay in loogu celiyo marka waa qayb dhan oo suugaanta Soomaalida gaar ahaan maansada Soomaalida kamid ah ergada markii la diraayo ama nin ha ahaado ama ha badnaadeena waxaa la fadhi jiray oo tolku inta shir isugu yimaado ayuu fadhi jiray xaqa ka maqan waxa uu yahay ay doonayaan ay hebel u sheeganayaan iyo inta meesha waxa ay ku qanci karaan oo marka ay kala soo noqon karaan laakiin ergadu inta tagto oo wax loo sheego oo wax la xaajooto iyadoo go'aan ma gaari jirin haddii aysan ahayn nin kali ah oo haddii ay ku wax ka maqanayso waraadsanay laakiin haddii xoolo badan oo kale ay tabanayaan oo haddii ay ku yahay laga ergeynayo waxay ahayd in la faro ergada loo sheego waxa ay doonayaan inta ay leeyihiin iyo waxa ay yihiin waxa ay ku qanci karaan iyo waxa aysan ku qanci karin loo kala cadeeyo sida darteed ayaa waxa jirta maahmaah oranaysa ergo wixii la farana waa geysaa wixii la siiyana waa cuntaa sidee baa kolka ergada loo qaban jiray dhaqanka wanaagsan ee Soomaalidu wuxuu ahaa ergada in si fiican loo qabto in haddii la ku rooyo la soo dhaweeyo in loo loogo in ardaayo iyo haddii la ku rooyo habeenka ay seexdaan loo habeeyo in haddii geeda loo waabo ay maalintii harsadaan inta jeero haddii la ku rooyo reeraha ay ergada u yihiin ay wax gasiintaan oo wax cunaan in iyagana sida oo kale loogu xil qabo in hadal wanaagsan la yiraahdo oo loo soo jeediyo oo haddii la ku leeyahay waxa ay yiraahdaan wax haddii la ku leeyahay oo dhigma oo hadal wanaagsan ah oo aan qadoofar ahayn haddii la ku leeyahay lagu xaajoodo guud ahaan dhaqanka wanaagsan ee ergadu sidaas ayuu ahaa waa sida ay tahay diblomaasiyadu haddii hadda dawladaha casriga ah maanta aynu joogno waxa weeye xaq kasta oo ka maqan inaad waxaaga soo hordhigtaa iyaguna ay ku soo hordhigaan waxa ay kugu doodsiiyaan si qabow loo wada hadlaa haddii la ismari waayo ay colaada hubaysan markaa timaada waxa marka ergada waxaynu ku sheegi karaa diplomatic mission ama haddii la ku yahay ergo ama haddii la ku yahay guddi diblomaasiyadeed oo xaq ka maqan ku raadinaya si nabadgeliyo iyo si qabow waxaad kolka u timaadaa hadda waan isweydiinaynaa muddada iyo dherarka waqtiga ay ergadu joogaysaa imisa ayuu leeka arrinta xiisaha leh inaan halkan ka xuso u baahnay waxa weeye in inta ay ergadu ka dhursugayso xaqeeda uu ku xirnaa had yeesheer sidii loogu garaabo ama sidii xaqa ay leeyihiin ama xaqa ay daba socdaan hadduu geeliyahay hadduu wax kale yahay inta looga garaabo markaa loogu celiyo mararka qaarkood waxaa kolka dhici jirtay muddo dheer oo
ninka ergada ama kooxda ergada ahi ay iska dul fadhido reerahaas ay wax ku sheeganayaan ilaa ay xaqooda ka helaan oo ay la guuraan oo la degaan oo haddii la guurayaan mararka qaarkood meel alla meesha ay degaan iyaguna ay la degaan markay guuraan la guuraan ilaa ay xaqooda ka helaan haddii marka xaqoodii markii wax ay doonayeen ay helaan ergadu iska noqon jirta markiiba laakiin marka ay muddada dheer joogayaan waa marka waxooda loo diido ama si uun looga hor joogsado in ay haddii la ku roon yahay ay helaan ragga ergada noqonaya waxaa laga doonayaa inay noqdaan rag adag oo haddii la ku roon yahay si aad ah xagga oogo iyo xagga dabeecad iyo intaba mararka qaarkood waxaa la isku dayaa ergada in laga caraysiiyo oo afragaado loo geysto oo la xumeeyo si ay inta u caroodaan xaqoodii isaga daayaan oo halkaa looga doodsiyo marka hadii jeer waxay oran jireen erga waxaa loo dirsadaa mahmaah weeye erga waxaa loo dirsadaa nin kudkude gaajo uga adkaysi badan oo dhagax qorax uga adkaysi badan oo doofaar cali uga adkaysi badan kurtuna dhaxan uga adkaysi badan waxaa rabaa inaad iska joogto oo halkaa uun aad ku sugnaato ilaa aad xaqii soo dhiciso lagu dirsaday ama aad adiguba lahayd waxaa tusaale uun soo qaadanaya halkaan in la oran jiray nuur maxamed oo gabiya ah ee nuur dhagay la oran jiray oo soomaalida bariga degi jirtay ka mid ah qarnigii 19aad bilowgiisii ilaa bartamihiisii nuur maxamed wuxuu ahaa isagu waxyaalaha hadda laga yaqaan dhaqanka garsoorka ee adduunka laga yaqaan ayuu markaa isagu soo barogayo waxa weeye nin aan xaq isagu ka maqnayn oo qolo kale intii haddii alla ku roon yahay ay ka codsato inuu xaqooda u raadiyo xaqooda hadduu soo helana xoolaha uu soo helo in qaar laga siin doono hadda waxaa laga yaqaanaa maxkamadaha adduunka yani garsoorka caalamka nin xaq ka maqan yahay ama koox xaq ka maqan tahay ama shirkad wax ka maqan tahay oo aan markaa ahayn lacagtii looyarka ama haddii alla ku roon qareenka oo isagii la heshiisoo tiraahda dacwadaa gal kharashkaaga ku gal markii ay soo dhammaato xoolaha laga helo oo xoolaha ay noo soo noqdaan ayaanu ku celinaynaa wixii nuurdhagii asna caynkaas ayuu yaqiino gobollada haddii la ku roon bari iyo sool nugaal iyo sanaag intaasba qabaa'ilkii degi jiray ayuu qabiilba qabiil uga ergen jiray wixii kaga maqan oo haddii kadibna يعني انت هشيس قران مركه هore heshiis lagu magacaabo karo heshiis shaqo ayuu markaa xoolihii uu soo dhacay oo la helo inuu ka qaadan jiray wixii hadii aan la ku roon yahay lagu heshiiyey mudday markaa meel yiraahdo karamaan ayuu u ergeeyay qolo joogto oo degan ayaa xoolo waxay ka soo dhaceen qolo kale geel xoolo geel ah ay ka soo dhaceen way ka soo dhaceen baa nuurdhigi u yimaadeen waxa la yiri ninka halka degan xoolaha ayaga nooga soo haddii aan nooga ergeeyo xoolaha ayaga nooga keen halkiiba nimankii ugu tegey nimankii waa ku madax adeegeen 12 bilood oo cid alla ka dhalatay ayuu dul fadhiyay nimankii maalinka dambe ayuu fakiray marka isagu wuxuu baajinayaa waxa weeye waa colaad ka dhexdhacda nimanka geeraya iyo nimankii soo dirsaday isaga marka wuxuu leeyahay colaad baa yani inuu colaadda baajiyo ayuu meesha u joogayo shaqada ka sokow haddii marka uu laabto isagoo faramaran waxaa hubaal ah marka colaaddii hubaysnayd inay dhacayso nimanka ay soo duulayaanoo xoolihii ay lahaayeen ay halkaa kaga daba tegayaanoo ka soo dhacsanayaan nimanka haysta nuurdhagay maalinka dambe ayuu fakiray geed buu keligii fadhiistay wuxuu yidhi ma 12 bilood baa meeshaan fadhidaa dumarkii iyo carruurtii aad hor fadhiday baa ku nacay oo hadda yani kaa xiisa dhacay haddii aan lagu roon yahay ma doonyihii baa haddii aan lagu roon bari carab ka yimid oo inta haddii aan lagu roon yahay hawadii iyo baddii u samaatay hadda shagaacanayo laabanaya waa makaliishii dayreed oo haddii aan lagu roon yahay kuleelka badnayd teedii hambaa waxa aan joogaa 12 bilood baa waxaan fadhiyaa isagii baa fakiray markaasuu gabiyey markaasuu wuxuu yidhi kayaha dayreed miyaa ka cakan ii muuqday ma baqaaladii baa ka wiray kirada doonaya kalkaan imid kalkiisii miyaa kaabiga i saaray karmihii miyaa iga leedaan karan aqoon waayey duqaan daba kashlayn jiray miyay haad duqaan daba kashlayn jiray miyaa haatan kaba beelay dumarkaan hor ku wududay miyaa haatan kahanaya kudhalaayo geelaan u imi maanta karamaana iga kici kuwii mayra helay laga kaxayn waayey
gabaygaas cabashada ah ee uu sida ballaaran dhagay ugu qeexay dhibaatada haddii la kuure ka soo gaadhay ergeyntii badnayd iyo waqtiga badnaa ee uu dul fadhiyay nimankii geerahayay gabayga isaga markii la maqlay odayadii reeraha uu la joogay aad bay haddii la kuure u dareensadeen aad bay waxay u maleeyeen inay colaadi lama huraan tahay gabayga nuurdhagayna aad bay u dareensadeen nin ku jiray odayada oo nin caqli badan aha ayaa yidhi inta shiriyey nimankii ama qoladii uu isagu ka midka ahaa inta shiriyey buu wuxuu yidhi nuurdhagay geela uu doonayo daba socdo ergadiisa uu yahay haddeer ha la siiyo haddii aan la yeelayn isagana ha la dilo maxaa yeelay gabaygiisu waa gabay colaadeed weeye waxa uu soo wadaana waa haddii la ku leeyahay gabayga sidaasaa ku sarbeeban colaad iyo dagaal baa ku sarbeeban gabayga ninka ama ha loo celiyo xoolihii uu daba joogay oo ergada ka ahaa ama ha la dilo isagana godobi ma yara markaas nimankii geerahayay taladii odaga waa yeeleen waxay yidhaahdeen geeri waa celinaynaa laakiin nin ka mid ah oo 25 halaad hayay 25kaasna ay ku jirtay hashii la oran jiray mayro oo nuurdhagay magac dhibay oo lahaa iga kici kuwii mayraha laga kaxayn waa tii oo lahaa ninka ayaa haddii la ku leeyahay mayrana u bogay geelina ku faraadeego wuxuu yiri 25ka anigu aan hayo cidiga qaadaysa lama arko haddii la ku leeyahay haddii aan dagaal laga qaadin ta soo tubo keeni maayo على أي حال عرفت سيدي من نقولنا واحد وقنا جيل إنه كانوا نقول لبتي سنة سنة لما تك حالات مركو ولا وحي واحد لو شيء والإنت عنك حيو أنت كرواكيه شيء إنه سنة لما تك أنا مرد بيان كوضع الله هنا نقول له يودي ذو وحي عدي على كم قنتاي جيلي حين مايو وظن مايو مركا والله ياري وركي سوى ياري جيلي oo aan hal ka maqnayn ayuu nuqdigay maalintii la tagay sababtuna waxa weeye aftahamadiisa iyo garaaqoontiisa iyo adkaysigiisa intaba ragii kale oo inta ergeeyay magta u ergeeyay laga diiday oo hadii la ku rooyay 12 bilood iyaguna kor fadhiyay nimankii magta ka qabay waxa kamid ah Ismaaciil Mira Gabyaaji la oran jiray Darwiishka ah marka maalinkii dambe ayuu ka tagay isaga oo gabay tiriyay isaguna tixgaaban oo hadii la ku rooyay ay colaaduna ku sarbeeban tahay qudhiisa markaas wuxuu yiri bishaan iyo bisheedii subaxda muunta faraskiisa ku horeystay inuu dhaqaaqo nimankii uu ergada u ahaa intuu dhex istaagay oo faraskiisa isagoo saaran buu gabiyo wuxuu yiri bishaan iyo bisheedii ergaan boor u yuuray barkada xaq ugu baaday baan ka baryahay bixina maysid oo xeer xun baad uu ku dhigateena maxay noo balana saaka waa bixitimaayay wax la yiri garan mayno laakiin waxa gabay ka muuqata muddadii dheerayd ee uu nimanka dul fadhiyay ee uu magtii uu ka doonayay uu dul fadhiyay arintan marka ergada ayada meesha waxa arintan kolka ergada ku saabsan ee dhaqanka Soomaalida iyo suugaanteeda ku jirta oo waxa ugu fiican oo marahayga lagu tusaareyn karaa hashi la oran jiray saluug ninkii hadii ay ku rooyahay laga dhacay ee uu ergeeyay ninkii gabayaaga ahaa wax walba ee hasha ku soo ceshan karo nimankii ka hortiriyay oo maansa ah wasafa ayaa ninkaasi tiriyay hashaas ku saabsan waxyaalaha uu ugu horeeyo uu marka dareensiiyay nimankii waxay ahayd inay yihiin niman tol ahoo inkastoo ay kala fog yihiin oo ay meelo kala fog ay kala degan yihiin oo indhawaarana aysan is arag haddana inay yihiin dad tol ahoo qaraabo ahoo aysan ahayn inay halku kala tagaan ama ku culoobaan wuxuu sheegayaa oo kale xoolaha boolida wuxuu sheegayaa oo kale xoolaha boolida in la qaato ama in lagu nacfiyo ama la dheebsado inay hadii la ku rooyahay xaraan tahay diin ahaan wuxuu xusuusinayaa Said Maxamed Cabdulla Xasan oo dhawaan wacdi uu jeediyay oo ku saabsanaa in boolida iyo hadii la ku rooyahay la iska daayo iyo xoolaha dadka kale aan lagu dhiiran wuxuu sheegayaa kale saluug inay tahay hal ay san iyo baal iyagu u leeyihiin oo firkeedii hadii la ku hadaba geelooda ku jiro oo aysan xaq u lahayn wuxuu sheegayaa in agooni leedahay oo hadii la wuxuu sheegayaa oo kale in hasha agooni leedahay oo loo baahan yahay inay taana qadariyaan oo aysan ku aakhira iyo adduun seegin hadii la ku rooyahay
waxyaalaha yaabka leh oo haddana ku beerdulcsanaya waxaa ka mid ah inay saluug tahay hal baaqima badha ah oo aysan ahayn in lagu eedoobo ama haddii lagu rooyaa lagu kala tago oo wax lagu yani hal loo xiso ma aha ayuu leeyahay waxyaalihii badnaayo marka muuda koobi kale tixda ayaa laga helayaa sababihii badnaa ee waxaas in loogu soo celiyo oo ninkaas oo aanan magaciisa helin uu sheegay waxa ka mid ah wuxuu yiri niman yahow ugaas nuur ilma adeerayaalow adinkiyo annaga toona eedi kama dhaxayso ikhwaan iyo waxaan nahay tolaan ood wadaagine in dhaweydsa araggeenu waa kala abaadaye odaybayna wada dhalay aabba iyo hooyo afar keliya kama joogno abtirsiinyaheenne aan colowna kii yidhi aqli ma laha buurane arwaaxiina uma quuro ul inaan ku tuurno boolida la'aamana abshir lagama qaado sayidka iyo ikhwaankiisa eraygoodii maqasho hashuna waa arwaax keliya iyadaanse doonaye haddaan eega laysiinna ma ilaawi doonee agoon iyo yatiim baa leh aakhira la eediye inkaar iyo wax daba guuri ibtiliyo balaayo ilaahaynba uma geeyo ruuxi ayaan leh annagaa isir u haynay iyo 10 awoowe ilma kaliya kuma qaybto mana aamusiise marka ayuu haddii intaa markuu sheegay ayuu wuxuu gelayaa arrin kale oo ah inaanu xasana ka harayn nin xoog leh uu yahayo geelna dhici karo halna la tagi karo iyo ka badan laakiin uu doonayo inuu nabad wax ku helo iyo ergadiisi markaas wuxuu yiri adimada wax laga biiyo in igama gaarin orodkana hadaan rooro laylama ekeeyo adduunkayga iga bayla idin lamana aalo kolka waxa inoo aadan saluug inaan eriyoode arinsada oo noo celiya isaayana ma haynay wax gudaba hore oo aan ka qabayna ma jirto aniga iyo nimanka aan ka imid marka hashayda iyo celiya runtii ma aan ogaan waligay hashaas iyada ah in loo celiyo ninka ay in kale laakiin marka dhaqankii Soomaalida dib u maracsato iyo aftahamada doorka ay ka qaadato waxa noo cadaanaysa ninkaas oo kale inaan hashaas oo kale laga haysan karin waaga la joogay oo ah xilligii uu masafada tirinay daawadayaal